calaykum mudanayaal iyo murwooyin soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada machadka darwiish academy qaybtani waa qaybtii dhexe waxaad soo barateen trainlineka iyo meelaha saxda ah oo la dhigto waxaad soo fahanteen patterniska qayb ka mid a sababtoo ah trainline dhexdiis baa waxay bay patternisku ka dhacan patterniskan laba qaybood bay marka u kala baxaan labada qaybood waxa weeye reversal iyo continuation reversal patternisku marka trainlineka meelaha lagu soo kala wareejinayo oo ku dhammaanayo bay ka dhacaan oo kore ama hoose waana reversal waa wax suuqii kala weecinaya reversal patternisku kuwa markuu suuqii kala weeciyaan ama sal hadduu suuq u socday ay buy u leexiyaan hadduu sal ku socdayna hadduu buy ku socdayna sal u leexiyaan waxa sii dhaqaajinaya waxa la dhahaa continuation patterns labada ugu muhiimsanna waxa weeye waa bearish flag oo markuu suuqu sal u socdo sii dhaqaajinaya iyo bullish flag oo suuqu markuu buy u socdo sii dhaqaajinaya hadda marka waxa ka hadlaynaa reversal patternska laba qaybood oo cajiiba oo mar badan waxa weeye aad arkaysid suuqa markaa ku jirtid badanaana dadku ay aqoon fara badan u lahayn laakiin qofku markuu market structure-ka khabiir ku noqdo patterniska iskagama khaldamayaan dad badan ba patterniskan waxay u isticmaalaan qaar continuation ku tiriya balse ma aha ee waxa ay ku jiraan waa reversal patterniska bay ka dhacaan inaad garataan iyaguna waa kuwa suuqa kala weeciya oo dhanka kale u leexiya falling wage-ka iyo rising wage-ka dadku marka ay tirinayaan waxay ku tiriyaan qaarkood inuu yihiin continuation patternska balse ma aha waa sababta dad badan ugu khasaaraan suuqa kan calaamadihii suuqa ama market structure-kii baa aada iskaga dhex yaacsan haddii aad ku jirtid darwiish academy iskagama kaa dhex yaacayaan sirtii oo dhanna waa tan falling wage-ku haddaan qeexidiisa ku horumarno bal horta see u samaysmaa dhaqaaqanuu sameeyaa oo ku soo socday sal kadib waxa loogu bixiyey afka hore baa weyn falling wage-ka meesha tan baa weyn barta tan baa waxay tahay qayb weyn in marba mar ka dambeeyana wuu sii yaraanayaa oo sidii sagsaaga camal afka aad buu usii yaraanayaa kadib micnaheedu waxa weeye selleriskii suuqa ku jiray baa sii yaraanaya micnaheeduna waxa weeye suuqii wuu kala weecanayaa wuuna kala wareegayaa badina meel hoose bay ka dhacaan suuqu waxa weeye ku kala weecanayo waan idinla wadaaga haddii waxa weeye kan kor ka dhacayana waa rising wage-ka iyo isagana waan idin tusin tusaalayaal cadcad baan idinka siinaya okay waxaan dul istaagaynaa markaa waa maxay falling wage falling wage-ku waa calaamad cajiib ah oo qaab dhismeedkeedu marka uu dhismo ya dhammaystirmana samaysa dhaqaaq cajiiba iyada oo u bedelaysa qaab dhaqaaqii uu suuqu ku socday ama wejigii salka ah ee suuqu ku socday u bedelaysa una weecinaysa ama u kala leexinaysa suuqa jihada buy marka saanuna u samaysmaa waxaan guda gelinaa marka rising wage-ku waa maxay isaguna see u samaysmaa rising wage-ku waa qaab dhismeed iyo calaamad cajiiba oo marka ay samaysmato ku tusinaysa in suuqu u kala wareegayo jihada u kala wareegaya inuu u kala wareegayo jihada sal inuu u kala wareegayo suuqu jihada sal buu u kala wareegaya sababta oo ah waxay ka dhacday meel kore oo maxaad arkaysaa suuqu inuu ku soo socday buy sii yaraanaya kadibna uu soo kala wareegay marka rising wage-ku waa qaab dhismeed iyo calaamad cajiiba oo marka ay samaysmato ku tusinaysa in suuqu u kala wareegayo jihada sal u kala wareegayo u weecanayo oo tan maxay u leexanaysaa baan dhahnay jihada sal bay u weecanaysaa una kala wareegaysaa kana maxay u leexanaysaa jihada buy bay u leexanaysaa marka qaybta tan structure-ka markaad aragto ama calaamadda tan falling wage-ku suuqu waxay u kala weecinaysaa
jihadii buy markii hore suuqu sell buu kusoo socday marba mar ka dambeysana awoodii selleriskii baa sii yaraanaya buyerskii baa suuqa soo gelaya candlekan kaxaynayna waad baranaysaan insha allah okay markaad kan fiirisay marka racing wage-ku suuq wuxuu kusoo socday sell buy buu kusoo socday maadaama suuqii buy kusoo socday maxaa sii yaraanaya dhaqaaqii hore midba midka ka dambeeya uu kasii yaraanaya kan dhaqaaqan uu soo sameeyey dhaqaaqa uu halaka suuqu kasoo sameeyey saaxiib halaka fiiriya saaxiibayaal dhaqaaq buu soo sameeyey dhaqaaqa kani marka aad fiirisid oo la barbarigtid kan kana yar kan markaad fiirisidna kanaa kasii yar kan markaad fiirisidna kanaa kasii yar kan markaad fiirisidna hal mar buu suuqii dhaqaaqaya isaga oo halaka kusoo laabanaya bartan isagoo kusoo laabanaya ku dhawaad kadibna halka in laga celiyo suuragal okay sababta ugu dhamaysa uu soo jabsaday intaasna profit aan caadi ahayn baa ka qaadanaysa marka racing wage-ku suuqa xagee u celiyaa suuqa sell buu usoo kala weeciyaa wuxuuna ka dhacaa meel kore falling wage-kuna wuxuu ka dhacaa meel hoose suuqana wuxuu u leexiyaa una weeciyaa jihada buy marka aan tagno tusaalayaashan cadcad aan u tagno suuqani muxuu kusoo socday marka hore suuqani wuxuu kusoo socday saaxiibayaal marka hore suuq sell kusoo socda buu ahaa markaad fiirisaan marka aad halka dul istaagtaan structure-ka suuqa aad soo jartaan halka kasoo jartaan ilaa halka dhigtaan waxaa arkaysaa marka inuu yahay falling wage haddaan hoos idinku soo sawiro halkan haddaa idin keeno waxaa arkaysaan falling wage inuu yahay sababtoo uu yahayna wax kale ma aha saad u arkaysaan falling wage-ki inuu yahay baa arkaysaan sooma oo suuqu bay u kala weecanay falling wage-ku markuu saan u samaysmo maxaa dhacaya fiiri marka saaxiibayaal si fiican u dhuuxa si fiican casharkan u fiiriya si fiican u fiiriya maxaa samaysmay wejigiisa hore waa weyn yahay marka dambeysa uu sii yaraanay marka dambeysa uu sii yaraanay marka dambeysa uu sii yaraanay kadibna suuqi xagee aaday wuu kala weecday okay aan soo jarno markuu kala weecday marka suuqi market structure fiiri sida uu suuqan intaa keliya confirmationka falling wage-ka inta markaad heshay suuqan si u kala weecday ama u leexday fiiri marka fiiriya suuqan si u leexday marka intaa keliya confirmation heshay suuqani sida u leexday ama xogta aad heshay fiiri laakiin adiga targetkaagu hadduu halkaa kuu noqdo kaa badan sababtoo ah waxaa soo cabiranaysaa wejigaaga halakan inta uu suuqu dhaqaaqay kadibna exactly dhaqaaqi bartiba ku istaagaya targetkaaga baa ku helaysaa markuu jabsaday kana waxaa la dhahaa marka falling wage waxaana ujeedaa marba marka dambeysa suuqii in uu soo yaraanayo ujeedaan marba marka dambeysa zigzag camal uu soo yaraanayo kadibna uu reversal sameey xagee buu ka dhacay trend line buu ka dhacay ujeedaan meel trend line suuqa lagu celcelinayay halka haddaa ujeedaan isagana maxaa reversal patterns-ka maxaa kamid ah laba garab iyo madax baa kamid ah saa ujeedaan isagana halkan buu ka dhacay laba garab iyo madax ka dhacay ujeedaan labadii garab iyo madax iyaguna halkana ka dhacay marka waa maxay waa reversal patterns-ka iyaguna mar walba maxay ka dhacaan meel suuqa laga leexinayo bay ka dhacaan meel kale waad arkin laakiin meelaha ay ka dhacaan badanaa waa meelaha hoose kuwa dhexana waxa ka dhaca continuation patterns-ka ka dhaca sida halkan oo kale hada impulsive correction continuation wakaas halkaas ka samaysmaya balse nuxurka marka aan cabirno targetkeena xagee noo noqonaysa ilaa intee baan doonaynaa halkaasaa dhigan kartaa meesha tan okay waa cabiranaysaa cabirkaaga waa soo qaadaysaa wejigana cabiraysaa halkana cabiraysaa ma ujeedaa kadibna halkaasaa dhigaysaa exactly targetkaaga si qurux badan kuu dhacay sababtoo ah si qurux badan baa waxa u cabiratay dhaqaaqii uu suuqu sameeyo dhan wejigana caadisa usoo cabiratay kadibna meeshuu ka jabsaday si qurux badan buu targetkaaga kugu gaaray okay sii cabiro targetkaaga halkaasuu kuu gaaray oo la socotay markuu jabsaday correctionka markuu jabsaday sii cabiro direct inaad sii haysatid okay halkan kasoo dhaqaaqay wuu jabsaday wuu dhaqaaqay jahwareer kaluu galay halka galay haddaa ujeedaan one hour markaad tegay si fasaxa u arkaysaa waa halka galay sii wad waxaa arkaysaa inuu halka kuu galay kadib muxuu sameeyey dhaqaaq kaloo correction kaloo halka galay haddaa ujeedaan correction kaluu galay kadib sii wado
bartaas fiiri waxaa arkaysaa inuu tegay market structure waxaan oo dhan waa market kabi ahaantiisa marka si usoo cabiranaysaa kabi ahaantiisa dhexda rabtid inaad soo cabiratid soo cabiro suuqu inta uu soo dhaqaaqay oo dhan halakan ilaa intuu kasoo dhaqaaqay ilaa uu kubeeka halakan ka imaanay intuu soo dhaqaaqay cabiro ma jeedaa aniga oo ka duulaya meesha uu yimaaday suuqani ilaa inta uu soo dhacay oo ahayd halakan ma jeedaa bartan uu yimaaday meesha dhigo halkaas cabirkaaga intaa ma cabirata ilaa meesha u sareysay kadibna meesha uu gaaray intuu jabsaday u jeedaan oo wuxuu gaaray dhaqaaqii hore meesha uu jabsaday markaa fiirisid dhaqaaqii hore meeshuu kasoo jabsaday adigoo bartaa dhigay waxaa arkaysaa inuu bartii gaaray sababtoo ah meesha tana cabirata cabirka kani halka laga soo bilaabo ujeedaan oo ah meeshu suuqa afkiisa meeshan uu gaaray yani markaa si fiican u dhigatid ujeeda oo afku gaaray okay kadib waxaa dhigataa bartaa cabirkan uu suuqu dhaqaaqay waxa uu leeyahay cabirkan kale ujeeda market structure haddaa marka halakan uu kasoo cabiratid oo meeshii u sareysay halakan uu gaaray ma ujeeda halka haddaa kasoo cabirtid barta haddaa kasoo cabirtid suuqa meesha haddaa kasoo cabirtid market structure halka haddaa kasoo cabirtid ilaa halkaa cabirtid waxaa arkaysaa suuqu markuu halka ka dhaqaaqay meesha uu gaaray inuu yahay meeshii kale ee market structure halakan meeshu cirif kala baxay meesha inuu gaaray market structure waa qaab aad ku cabiran kartid falling wedge-kaaga aad ku heshay haddaad target long aad rabtid oo intaa keliya confirmation ka markaad heshay suuqu waxa uu kuu dhaqaaqay fiiri 1300 ku dhawaad buu kuu dhaqaaqay haddii keliya aad ka geshid halakan ka waran cabirkaaga keliya intaa cabiratid oo halkaas suuqa kasoo cabiratid inta tan inta uu kuu gaaraya fiiri saaxiiba waxaad ka helaysaa confirmation dhan ilaa iyo markuu jabsado 300 400 oo biiba kaa badan adigoo helay xogtaa keliya oo fudud okay suuqa marka aan fiirino waxa la dhaho marka racing wedge-ka aan fiirino wejigan aan fiirino kale isagana halakan uu ka dhacaa meel kor uu ka dhacaa trail line buu ka dhacaa halakan isagana wuu jeedaa suuqa isagana marba mar ka dambeysa wuu sii yaraanay sababtoo ah halakan uu si weyn usoo samaysmay suuqii kadib maxaa dhacay wuu yaraaday kadibna wuu soo dhacay isagina waa kan haddii aan soo jarno marka oo halkaa keenno ilaa iyo meesha uu gaaray waan soo cabirayna isagana saana u samaysma saaxiibyaa waa maxay waa racing wedge-ka isna saana u samaysma haddaan soo qaadano isagana dhigno meeshuu ka samaysmay iyo kii u ekaa aan u geyno oo aan ku shabahnay waxaa arkaysaan in isku mid yihiin baad arkaysaan inay isku mid yihiin baad arkaysaan weliba si toos ah inay isku mid u yihiin baad arkaysaan markaad fiirisid inay isku mid yihiin baad arkaysaan soo ujeedaan the same qaabka usoo warinay saaxiibka dhaqaaq marba marka dambeysa wuu sii yaraanayay kadibna wuu soo jabsaday meeshuu yimaadana ujeedaan meesha oo calaamadina buu yimaaday okay isla fahanay soo racing wedge-ka isagana waa reversal buu sameeyaa sel buuna suuqa u soo celiyaa suuq baa ku socday okay xaggee ka dhacay isagana meel kor uu ka dhacay meesha kale meel hoose ka dhacay fiiri marka saaxiibyaal suuqani muxuu sameeyey markaad fiirisid waxa uu sameeyey haddaan isla fiirino aan iska tirtirno tan okay suuqu waxa uu sameeyey dhaqaaq meeshan baa dhiganaynaa marka meesha tan uu ka bilowda halkaa noo dhig ama haddaa rabtid meeshan kale inoo dhig oo ah isna iyaduna dhaqaaq halakan oo kale haddaa rabtid okay meeshaas kale noo dhig balse halakana target bay kuu noqon kartaa ogowtaa waxaa soo cabirataa marka cabirkaagii suuqu soo sameeyey okay haddaa rabtid target dhow yani halakan ilaa halkaas soo cabiro okay ilaa intaa markaa cabiratid oo suuqu jabsado waxaa arkaysaa targetka inuu halka ku yahay si qurux badan haddii kale aad doonaysid suuqa halakan cabiro bartan dhigo targetkaaga halakan meesha tan ay meeshu ka bilowday ilaa iyo halakan oo ah meeshii uu gaaray impulsive-kani okay kadib markuu soo jabsaday soo cabiro exactly inuu halka ku yimaado arkaysaa kadibna kala wareegay oo uu halkaa kala weecday okay haddaa rabtid break out-ka keliya markuu samaynayana waa kan halkaas ilaa halkaas kuusoo gaaraya oo ah
ku beegan meeshan ku beegan markuu saa usoo jabsado market structure-ka waa muhiim inaad baratid rising wage-kina waa waxyaabaha sameeya meelo badanna wuu ka dhacaa oo waad arkaysaa waa waxa suuqa kala weeciya oo mar walba jihadii uu ku socday oo ahayd buyda uu ka leexiyo oo sellka u leexiya ujeedaa intaa keliya confirmation-kan kan yar markaad heshid inta xoga aad helaysid fiiri haddaad cabiratid keliya xogta inta aad helaysid 200 bib ku dhawaad baa helaysaa haddaa hoos sii dhigno oo aan dhigno halakan waxaad helaysaa xog kale oo ah inuu suuqii soo kala weecday oo ilaa 300 400 oo bib ku dhawaad uu gaaray taasna waa sir cajiib ah oo qofku haddii uu barto uu faa'iido fiican ka sameynayo waxaan idiin rajaynayaa guul iyo farxadda noocyadeeda kala duwan guulaysta dhammaantiin mudanaya iyo murwoy sirtii forex Darwish Academy baad ka helaysaan hamogaanina guul baan idiin rajaynayaa